waxaa maanta ka bilaabmay Buula Golija oo ka tirsan tuulada Mirgo Haruun tartanka Quraanka Kariimka oo sanad walba bisha barakaysan oo Ramadaanka la qabto. Tartanka ayaa waxaa ka qayb qaatay 25 arday, 18 ka mid ah ay yihiin wiilal, 7 ka midna ay yihiin gabdho. Culimada magaalada, odayaasha, ardayda xarunta taxfiidka ee Nasruddin ayaa waxaa dhammaantood ka muuqatay farxad aad iyo aad u weyn. Ujeedka qabashada iyo hirgelinta tartanka Quraanka Kariimka ayaa waxay tahay in lagu dhiirigeliyo ardayda xifdinta iyo tayeynta habka barashada Quraanka Kariimka. Waxaa xafladda lagu daahfuray Quraanka Kariimka ee uu akhriyay arday ka mid ah ardayda. Munaasabadii furitaanka ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Cali Sheekh Xasan isagoo ammaan dusha kala dhacay macallinkii taxfiidka ee Nasruddin, Macallin Maxamed Cali Cadow, isagoo sheegay in ay tahay tilaabo lagu dayan karo waxa uu sameeyay macallinka. Ugu dambeyntiina xafladda waxaa ka hadlay odayaasha tuulada ayagoo soo dhaweeyay arrintan. Ugu dambeyntiina ardayda ayaa waxaa la guddoonsiiyay hadiyado kala duwan oo iskugu jiro kitaabo Qur'aan ah iyo hadiyado kale oo aad u badan.
وسواء على فكرة جزء قسم جزء قسم